saaka xaaladda magaalada baydhabo ee gobolka Bay waxay tahay xaalad walaacsan. ciidankii mucaaradka ahaa gudaha ayay soo galeen iyadoo ay tahay maalin Ramadaan ayay dadku barakacayaan. wax la yaab leh ayaa ka soconayo gudaha magaalada baydhabo ee gobolka Bay. khilaafka cirka ay isku sii shareeray dabcan xaaladuna waxay u muuqataa mid ka sii darayso. rasaas teelteela ayaa gudaha laga maqlaya. dhinac kasta isaga ayaa ku jabay. dagaalka uu Xasan Sheekh lafta gareen laba natiijo oo guul darro ah ayuu ka gaaray. sidaas waxaa qoray Cabdirasaaq Nuur Jimcaale. haddaba waxaan eegaynaa xogta dagaalka ka socda magaalada baydhabo ee gobolka Bay. maalmihii laysku soo dhoweynayay gacmaha furan iyo caleemaha qoyan waxay ahaayeen maalmo lasoo dhaafay. hadda dagaal culus oo siyaaseed ayaa u dhexeeya labada dhinac. xogo dheeraadana waxaa laga helayaa khilaafkan banaanka yimid iyadoo oo Cabdicasiis lafta gareenna ay khatar ku tahay tagista magaalada baydhabo. iska daa inuu tago muqdisho iyo meelo kale oo la mid ah waxaa loo diidan yahay inuu tago magaaladii baydhabo ee uu xukumayay. haddaba dagaaladan dhacaya iyo khilaafaadkan mas-uuliyadooda yaa waaye cidda qaadaysa. waxaan ku hayaa warbixin gaara. sidoo kale faahfaahino ayaa ka soo baxaya howlgallo culus oo maanta ka dhacay gobolada shabeellooyinka waa shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoose. sidoo kale netanyahu ayaa ka soo muuqday warbaahinta markiisii ugu horreysay maalmo lalahaa waa baktiyey kadib wuxuuna ka hadlay wararka sheegaya geeridiisa. haddaba ninkan maxaa gaaray ilaa iyo hadda maxaase ka runa wararka sheegaya geeridiisa ma isagaa mise waa garaadka macmalka ah ee AI-ga markaasi la yidhaahdo. haddaba qodobadaas oo dhan ayaan eegaynaa. saaxib soo dhow haddii aad channel ku cusub tahay subscribe soo dhow, muuqaalka like saar, siina share garee, waa mahadsan tahay. waxaan ku bilaabayaa magaalada baydhabo ee gobolka Bay. saaka xaalkeedu waa kacsan yahay waxaana uu yahay mid markaasi car iyo wir ah iyadoo oo dadka shacabka ahna ay cabsi badan oo lixaad la muujinayaan. tan iyo shalay waxaa socanayo barakac qof walba wixii awoodu ku guuraya. mooto bajaaj joodariyaal kor laga saaro arkaysaa, sariiro la saaray, gaariga nooca loo yaqaan noohada ayaa sidoo kale arkaysaa. qof walbaahi sida uu ku bixi karo, kii caruurtiisa gacanta ka qabsan karo, qof walba sida uu magaalada uga bixi karo ayuu uga baxayaa. xaaladan waxaa dab ku sii shiday khilaafka dowladda iyo sidoo kale markaasi u dhexeeya dhinaca maamulka koonfur galbeed oo lagu daray xubnaha la magac baxay badbaadada koonfur galbeed. dhammaan waxyaabahan oo dhan waxay muujinayaan markaasi tusaalo iyo ifafaalooyin dagaal oo xaaladda quus sii gelin karta. su-aalo badan ayaa layska weydiinayaa. halkeebuu ku dambeyn doonaa dagaalkan? yaa ku guulaysan doono? cidda ay natiijada raaci doonto iyo sidoo kale waxyaabo kale ayaa markaasi laysweydiinaya. adi ahaan sidee baad u aragtaa waxa soconaya? maxayse kula tahay? geesta kale daawadayaal haddaynu eegno faahfaahino iyo warar dheeraada ayaa laga helayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed si gaara kumaandooska gorgor iyo ciidanka danab oo maanta ama maalinnimadii markaasi shalay howlgallo ka fuliya deegaano ka tirsan shabeellaha dhexe si gaara tuulooyin hoos yimaada deegaanka xaaji cali ee gobolka shabeellaha dhexe. howlgalkan ayaa markaasi waxa uu yahay mid lagu xaqiijinayo ammaanka iyo sidoo kale mid lagu sifeynayo kooxda shabaab sida xogaha markaasi ay xaqiijinayaan. sidoo kale howlgalkan waxaa lagu aasay ama lagu aas-aasay saldhigyo ciidan oo ay markaasi sameeyeen ama ka samaysteen meelaha istaraatiijiga ah kooxda al-shabaab sida wararku markaasi ay sheegayaan. howlgalkan waxaa hogaaminayey gaashaanle cabdiweli junane oo guddoomiyaha anrahda ee waa taliyaha ururka 184 ee guutada 18aad kumaandooska gorgor dhamme maxamed cabdiqaadir diriye iyo taliyaha ururka 104 ee guutada kumaandooska danab. howlgal kale ayaa isna ka dhacay inta u dhaxaysa walaweyn iyo sidoo kale buur hakade oo lagu bartilmaameedsada argagixisada. xubno macaawisley deegaanka ah iyo sidoo kale ciidanka dowladda ee tobabarka sare qaba oo ku jira xerada Balidoogle ayaa howlgalkan iska kaashaday wuxuuna ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose sida ay xog sheegayso. howlgalkaas ka dhacay shabeellaha hoose waxaa lagu dilay 9 dhagar qabe oo ka tirsanaa maleeshiyada arxanka daran ee al-shabaab kuwaas oo dhibaato ku haya shacabka sida war ka soo baxay dowladda iyo macaawisleydaba lagu xaqiijiyay. ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka ayaa sii wada dagaalada lagu caburinayo ama lagu ciribtirayo dacan al-shabaab waxaana ka go'an difaaca shacabka iyo xoreynta guud ahaan deegaanada ay weli ku dhuumaalaysanayso kooxda argagixisada ayaa lagu yiri war ka soo baxay wasaaradda difaaca Soomaaliya oo wasiirka ka yahay Dr. Axmed Macalin Fiqi. sidoo kale taliska xoogga dalka Soomaaliyeed waray ku baahiyeen markaasi idaacadda ku hadasha afka codka ciidamada qalabka sida SN radio ayaa lagu xaqiijiyay in jab xoogan la gaarsiiyey maleeshiyada al-shabaab.
geesta kale wararka dibadda hadaynu eegno ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa gaashaanka u daruuray wararka si weyn baraha bulshada ugu faafay ee sheegaya geeridiisa. ninkan ayaa warbaahinta dunida waxaa saacadii lasoo dhaafay ay qoraysay inuu baktiyey. Netanyahu ayaa saacado ka hor ka soo muuqday muuqaal uu si kaftana uga hadlayo sheegashadaasi isaga oo kafee ka cabaya maqaaxi ku taal Tel Aviv, koob shaaxa oo kafeena gacanta ku haysta. wararkan ayaa si weyn ugu faafay baraha bulshada kadib markii Iiraan ay sheegtay in la dilay isla markaana maalmihii dambe ee saaxadda laga waayay Netanyahu oo inta badan ka soo muuqan jiray warbaahinta. Netanyahu ayaa si toos ugu jawaabay xantaas isaga oo ka saaray ama soo saaray muuqaal cusub oo ujeedkiisu ahaa inuu ku muujiyo inuu nool yahay shaqadiisiina uu si cad u wato. dabcan sida uu hadalka u dhigay muuqaalka oo lasoo dhigay bartiisa Facebook ayaa lagu arkay Netanyahu oo dalbanayo kafee isla markaana ka maadsanaya ama ku maadsanaya wararka dhimashadiisa ee la isla dhexmarayo isaga oo tix raacaya wararka dhimashadiisa ayuu yiri waan u dhimanayaa kafee, taas oo ah weed caan ku ah afka markaasi cibraaniga la yiraahdo ama Hebrew. waxa ay ka dhigan tahay in qofka uu wax aad markaasi u jecel yahay uu leeyahay isaga oo si kaftana markaasi u yiri waan u dhimanayaa kafee. waxaan diyaar u ahay inaan u dhinto qarankeyga ayuu sii raaciyay intaas, inkastoo Israel aysan ahayn qaran madax bannaan ee ay tahay markaasi maamul aan dalal badan oo adduunka aqoonsi ka helin. muuqaalkii hore ee ku faafay baraha bulshada ayaa muujinaya muuqaal 6 farood leh. Netanyahu ayaa sidoo kale ka jawaabay isaga oo dhahaya farahayga waad u jeedtaan ma afara ma shana ma lixa ayuu yiri isaga oo gacantiisa kor u qaadaya. dabcan muuqaalkaas si weyn baraha bulshada ugu faafay ayaa markaasi saacadihii lasoo dhaafay si weyn loo hadalhayay iyada oo la sheegayay warka geerida Netanyahu. guud ahaanna mawduuceena waa naga intaa muuqaalkan. annaga qofna dacweeday oo gobolka Banaadir haddii noogu timid maxkamadana dacweedo ma jirto. dukumiinti haysanaa qofna dacweedo lama arko oo dacwa in qabtaana tiri. dadku haddii la yimid warqad la soo qoray xukuna waxa laga soo qoray hebel laga fuliyay. annaga hebel nima la yiraahdo dukumiinti aan leenahay siyaad barro waaye 87 ku degannahay dhul annaga aan leenahay oo intaas sano degannahay. dadka warqadaha wata ee shibis iyo shangaani ka soo qaadaya baalka la yiraahdo baasha la yiraahdo warqadii hore shibis iyo shangaani la keen warqadahan 60kii shibis iyo shangaani lagu degan yahay 60kii hodan xataa lagu degana shibis iyo shangaani warqadaha laga soo raraayo oo la keenayo halkan annagu ma ogolin waa diidnay dagaala ka xignaa waa la isku baabaa dawladda in ogaataan raba aqliga bini'aadanka waxa galaya qofka waxa marka hore warqada loo geeyaa marka dambana eedeysana laga dhigaa marka dambana dambiila laga dhigaa marka dambana la xukuma intii midna ma haynaano waa dad lagu soo duulay oo biyo la isku soo gambanaan annaguna qof oo gambayna lama arko qofka waxa la rabaa in runta la isku sheegaa la rabaa annaga haddiina la dacweynayo maxkamadda gobolka Banaadir galkii aan ka furno waa la diiday annaguna dagaal diyaar la nahnay haddii la diiday sharcigi annaguna sharci ma ogolin sharciga dawladda diiday annaguna sharci waa diidnay haddii sharciga ogoshay dawladda anna sharciga ogolna in la ogolaa in la ogyahay warkaas dawladda sharciga ha ogolaato in maxkamadaha aan la ka furo galalka ha ogolaato in warqadda aan la furo ha la ogolaado arkiifyada gobolka Banaadir ku jirna annagu kuma jiro warqadda annaga hadda lagu fulinayo gobolka Banaadir ma laga soo helayo mana la yeelayo wax ka jira lama arko mana shaqaynayso waa la isdilaa dukumiinti wax ka jira male waa isku dagaalaynaa dawladda inay ogaataa waa billahi tawfiiq meeshaan wixii loogu yimaadaa waa inaan isdilnaa aysan maxkamadda hal ogolaado inaan galka furno waxaanu nahay dadka degan egas kantarool afgooye waxaanu nahay cabasho waxaan ka cabanaynaa laba arag iyo laba maqal oo nala dul saaray nin baa yidhi hal waa yaab halla waa yaabka yaabkii halla waaba yaabayaalo waxaa la yidhi dukumiinti aniga hal sano iga weyn oo 62 la sameeyey anigu ma dhalan 62 baa la sameeyey baa la yidhi ilaa dawladihii soo maray Soomaaliya waxaa loo waayay dhul baa loo waayay dukumiintiga 62 la sameeyey anigu intaana dhalan ka hor la sameeyey waa yaab ee dhulka loo waayay waxa yaabka yaabkiisa dukumiintiga wuxuu ku qoran yahay tariiqiga sigaarka xerashiine waxa yaabayaala dukumiintiga halka ku qoran ee xerashiine iyo ku qoran halka tariiqiga sigaarka oo la yiri waxa lagu fulinayaa egas kantarool afgooye
degmada hodan egas kantarool oo ka tirsan hadda degmada dayniile markii horena dukumiintigeeda soo ahaa degmada hodan ayaa waxaa lagu fulinayaa dukumiintiga hawl wadaag baa lagu fulinayaa hodal waa yaabkiis marka xigta waxaa haddana oo meesha jirta oo yaaba hay'adaha garsoorka ee dawladda waxa ay soo qoreen ee aan dadkii meesha deganaa loo yeedhin ee aan la wada hadalsiin ee aan galdacwadeed lahayn ee aan fadhi lahayn ee aan xukun lahayn ee fulin haddana taasuna waa yaab kale waxaan marka aan u sheegaynaa madaxweynaha ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha baarlamaanka xildhibaanada amniga booliska waxaan u sheegaynaa dhulkan inaan lagu qaldoomin dhulkan dad baa iskale waa guri dad leeyahay nin kalena ma degi karo yaana lagu gadsoomin warqadan waxaa ku qoran fulinta in laba qofood oo nin la yiraahdo Axmed Xuseen Cusable iyo Axmed Ducaale Geeli Xaaf laga xukumay lagu fulinayo dhul oo deganin meeshan marka hore ay soo qusaynin intana ay dhul ku lahayn shaqana ku lahayn marka labaad xukunkan waxa la 2017 la xukumay dhulkan wax dadka degan xaafadaana oo la wacay oo maxkamad looga yeeray 17 oo meeshaas tagana ma ay jiraan waa qodobka labaad midda saddexaad 2015 bishii labaad 2025 fulinta markay soo baxday oo annagana soo gaartay wixii ka dambeeyay waxaan isku daynay inaan sharciga aan raadino annagoo dhahayna markii hore soo gaartay war annaga magacaan dhulkan wuxuu ku qoran yahay 21 Oktoobar waqooyi waxa ka mara dhulka leeyahay warshada tarqi sigaarka meeshaana tarqi sigaarka wax leeyahay kuma yaalaan tarqi sigaarka wuxuu ku yaalaa hawl wadaag jidka warshaduhu saaran yahay xirashadu daris leeyahay waa degmada hawl wadaag fulintan waxay ku socotaa waa dhulkaas annaguna waxaan degannahay hodan hodan hadda dayniile laamiga afgooye iyo inta u dhaxla jidka warshadaha waxna quseeya ma ah waa markii sida sharciga looga hadlo warqadda annaga wax shaqo kuma lihin dadka ku socotana kamid laakiin waana la ka diido waxa la yiri adinkaan la inka fulinaya waxyaabaha la yaabo mucjisada kamid tahay qof la war aniga maxamed la yiraa adiga cali lagu leeyahay oo haddana maxkamadii ay leedahay oo fulinta ay leedahay uu leeyahay war magac leeyahay yiraa aniga shaqada kuma lihin ayaana kor saaran warqadda fulinta oo tarqi sigaarka iyo hawl wadaag ku socota ayaa la rabaa in laga fuliyo degmada dayniile ekisna ayaa jirtay hodan waa midda sharciyada waxaan rabaa kor istaago oo la yaaba dadka Soomaaliyeed rabaa inaan ku baraarujiyo Soomaaliya waxa lagu geeridii laga sheegay galbeed gundaha ka filo warqadan fulinta oo maanta annaka naloo keenay oo aan shaqada kulan lagu fulinayo waa maanta u horeysa kulli birin way socod doontaa dad badan ku imaan doontaa